السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما قيارتي وين سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sidee Windows 7kaaga aad original ugu dhigi lahayd waxa laga yaabaa haddii Windows 7kaaga original ahayn inuu ku dhow Windows-kan soo active garay ama shaashada dhammaan madow ka noqdo background aad saari kareen waxyaabaha waxa kamid oo kale inaad heli karin update-ka kale ayuu ku diidayaa si marka aad u heshid Windows original marka la soo casharka Welcome my YouTube channel. marka si aad u soo dhalan kartid fayga description ee kasoo dhalanaysa right click ayaa leedahay kadibna extract to name ayaa leedahay videoga hoostiisa ayaa description-ka la dhahaa meeshaas ayaa kasoo dhalan karaysanaysaa insha Allah bina kareem kadib faylka markuu sidaan kusoo baxo folderka waa furaynaa gudaha ayaan gelinaa kadibna programka ayaa kusoo baxay inta badan oo isticmaalno 8ka iyo 10ka iyo 7ka dhammaan waa ku wada shaqeynaa kadibna open ayaan leenahay double click hadana open ayaan leenahay okay kadib markuu ku furmo ujeedaa Windows sidaan ayuu ku yahay calaamadaas marka inaan ka qaadno ayaan rabnaa kadib computer tag properties tag right click properties kadibna waxaan fiirinaynaa inuu Windows original yahay inuu ahaynin hoos markaa tagto waxa lagu leeyahay Windows you must active today Windows marka programka uu noo soo kacay kadibna accept ayaan leenahay I accept kadibna active ayaa leedahay si aad u active gareysid Windows-gi marka dhacdo meesha reediga yes ayaa leedahay meesha reediga waxa ku soo baxaysa wait ujeedaa wait ayuu isku bedelay si Windows-gi oo u bedelo isla markuu bedelada bilaabo wuxuu sameynayaa inuu Windows-gi oo ka dhigo originalka qaybta faagina ka saaro saas oo Windows-ga markaas u baahatin update sameeyay si sahal ah ayaad ku sameyn kartaa markaas ku fududa kadibna waxa lagu leeyahay computerka ku samee reboot si computerka oo la qabsado barnaamijka restart ay ku sameeyay kartaa computerka kadibna wuxuu sameynayaa inuu Windows-gi ka saaro original ka dhigo copy-gina ka bixiyo taas marka waxay ka caawinaysaa qof kasta inuu yaqaan laga yaabo laakiin waxa rajeynaa insha Allah bina kareem muhiimadda waxay tahay ardayga bilowga ee badanaa ku taxan ifham iyo ahmed shafiicba inuu ka faa'iideysto casharkan sababtoo ah waxa laga yaabaa Windows 7ka isticmaalaysa inuu active ahayn ama Windows 8ka ama Windows 10ka barnaamij waxyaabahaas oo ka caawinaya sababtoo Windows-ga hadda original ahayn inta badan Microsoft cilado badan ay xagga ka soo wajahayso oo ujeedaa faylkii uu ka baxay meeshan Windows-ga originalka ma ahan ma computer tag right click ku dheh kadib waxaad tagtaa properties ayaa tagaysaa kadib markaa properties tagtid meeshii hore ayaan ku laabanaynaa sidaan ku ogeynba oo Windows-gi marka inaan ku aragno calaamadii originalka ee ujeedaa genuine-ka ujeedaa Windows Microsoft-ga calaamadda lagu yaqaan Windows 7kii sidaas ayuu diyaar ku yahay Windows is activated macna waa la active gareeyay sidaas marka Windows-gi uu ugu fududahay waxa laga yaabaa dadka qaar inuu dhaho Windows-ga aan iska bedelo marka right click marka ku dhaho aan personalize aan doorto kadibna aan background u saaro marka waxaan fiirinaynaa background-kii ma qaadanaa sababtoo original waa ka dhignay calaamadina waa ka saarnay watermark-gii kadibna waxaan dooranaynaa background-kii aan u dhabo kadibna background-ka waxaan soo doornaa Windows 7ka caadigu leeyahay kadib markaan ku sii click okay sidaas waa marka insha Allah bina kareem ka faa'iideyso wanaagsan wixii aqoontaada walaaga u faa'iiday like share dhammaan commentigiina kulligiin nala qaata insha Allah bina kareem wana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا